xasuuqii Namibia. Assalaamu calaykum, kusoo dhawaada fiidiyogeena maanta. Waxa uu ku saabsanaan doonaa xasuuqii Namibia. Ugu dambeyn waxay garatay dowladda Jarmalku fal-damiyeedkii ay u geystay shucuubtii asalka u ahaa Namibia ee Hareeriyiinta iyo Nama, kaas oo ay ku kacday mustacmaradii Jarmalka ee Koonfur Galbeed Afrika intii lagu guda jiray sanadii 1884 ilaa sanadii 1915, waxayna taariikhyahanadu ku sifeeyeen inay tahay xasuuq wadareedkii la ilaaway ee bilowgii qarnigii 20aad kana dhacay dhulka loo yaqaanay xilligaas Koonfur Galbeed Afrika ee hoos imanaysay mustacmaradii Jarmalka ee halkaas. Namibia waxay ahayd mustacmarad Jarmal oo rasmi ah laga soo bilaabo sanadii 1884 intii lagu guda jiray 1903. Waxaa degay halkaas 3,000 oo qof oo Jarmal ah, gaar ahaan dhulka taaga ah, waxaana ka dhashay deegaamayntaas in la waayay isu dheelitiranka bulsheed iyo dhaqaaleed ee deegaankaas, waxaana bilaabmay khilaaf iyo loolan dhanka dhulka, biyaha iyo kheyraadka xoolaha ah. Qabiilka Herero ayaana kiciyay kacaan bishii Janaayo sanadii 1904 ee ka dhanka ahaa Jarmalka, gaar ahaan deegaanka Okahanga oo hogaaminayay hogaamiyaha Samuel Maherero, waxaana dadkeedu dileen 123 gumaystayaal Jarmal ah oo ay ku jiraan degeneyaal iyo askar. Dhacdadaas kadib, militariga Jarmalka ayaa si adag uga jawaabay iyagoo sita hub culus kana casrisan dhan walba kan ay sitaan dagaalyahanada Herero, waxayna la galeen dagaalkii Waterberg ee dhacay 11 Agosto 1904. 1500 oo askarta Jarmalka ayaana ka guuleystay kana adkaaday ku dhowaad 40,000 oo Herero ah, 5,000 oo ka mid ahna ay siteen hub. Dabcan 35,000 ee soo hadhay ma ay siteen wax hub ah, waxayna wajaheen qabiilka Herero dhibaatooyin dhimashooyin kadib markii la soo saaray amar gumaysi lehna in la laayo dhammaantood lana ugaarsado kuwii ka badbaaday dagaalkii, waxayna u carareen saxaraha Namibia. Waxay sii wadeen xoogagii u watay General von Trotha baacsigii iyo ugaarsashadii ay ku hayeen Herero. Qofkii aanu dilin ciidamada Jarmalku waxay gaajo iyo haraad ugu dhimanayeen saxaraha, wuxuuna magacaabay Embaradorkii Jarmalka ee xilligaas amrayna General von Trotha inuu si kastoo ay ahaato uu damiyo kacdoonkaas iyo dhaqdhaqaaqaas, wuxuuna General von Trotha dhowr goobood kaga adkaaday ilaa uu la wareegay dhulal badan. 9 Diseembar sanadii 1904 waxaa Embaradorkii kansalay amarka xasuuqa, isagoona ka doorbiday in lagu ururiyo xeryo, xoogna loogu khasbo shaqooyin khasab ah, loona raro halkaas intii ka badbaaday oo Herero, waxayna xeryahaas kala kulmeen dhimashooyin, waxaana dhintay kala badh maxaabiistii isla sanadkii ugu horreeyay, waxayna ka cawdeen cunto xumi iyo xanuuno, waxaana loo adeegsaday tijaabooyin caafimaad, waxaana xadgudubyo lagu sameeyay haweenkoodii iyo carruurtoodii. Intaa kaliya ma ahan, oo raggii hubka watay iyo kuwii aan wadanba waa ay ku jireen. Laga soo bilaabo Oktoobar 1904 ilaa 1905 waxaa kacdoonkii laga soo jeeday Jarmalka ku biiray qabiilka Nama, waxay ku dhammaadeen xeryo lagu ururinayo. Dilalkii iyo xasuuqii ayaa sii socday, waxaana lagu qiyaasay dadkii la dilay 60,000 oo Herero ah iyo 10,000 oo Nama ah intii u dhaxaysay sanadii 1904 ilaa sanadii 1908. waana 4 sano gudahood, iyadoo qiyaasaha qaarkood ay soo jeedinayaan in dhibanayaasha ay matalayaan qiyaastii 80% oo Herero ah iyo 50% oo ah qabiilka reer Nama. balse waro xajmiga iyo qarada ay leegtahay, Herero waxa ay hadda ka kooban tahay 7% oo kaliya tirada guud ee wadanka Namibia, halka ay 40% ka ahaayeen bilowgii qarnigii 20aad iyo ka hor xasuuqaas. Inta kaliya Jarmalku kagama hadhin, wuxuuna 10,000 oo ka mid ah ka gurtay madaxyadii kadib markii la dilay, waxayna madaxyadooda u direen cilmi baarayaal ku sugnaa magaalada Berlin si ay daraasado saynis ah u sameeyaan, ayna xoojiyaan caddeeyaan aragtida ka sarreynta jinsiga caddaanka kan madow. Wassalaamu calaykum.